bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan halkani waa ka yeelan qodobada ugu doorka roon warka subax waxaa ka mid ah Mareykanka oo sheegay inuusan dulqaad u haynin in la masuqmaasuqo taageerada gargaar ee loogu talagalay Soomaaliya dowladda Soomaaliya oo lagu eedeeyay in lunsatay gargaar loogu talagalay dadka danyarta ah ee ku nool Soomaaliya hogaamiyihii kooxaha ka dagaalama koonfurta Yemen oo la tilmaamay inuu baxsaday deegaanada maamulka Somaliland isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo war ka soo saaray sida uu Yemen kaga baxsaday hogaamiyihii maleeshiyada ka dagaalanta koonfurta Yemen madaxweynaha Puntland Siciidani oo mas'uuliyiinta maamulkaas mar kale kala hadlay xadgudubkii Yahuuddu ay ku sameysay midnimada dalka waa maxay qorshaha Israa'iil ay ka leedahay aqoonsiga ay siisay maamulka Somaliland oo warbixin aad ku maqli doontaan warka subax Djibouti oo mar kale ka soo horjeesatay aqoonsigii sharci darrada ahaa ee Yahuuddu ay siisay gobolada waqooyi ee Soomaaliya maamulka Puntland oo sheegay in tallaabada ka qaadayaan dadka anshaxumada ku faafiya baraha bulshada ee ku nool deegaanada maamulka iyo waaxda amniga gudaha Mareykanka oo war ka soo saartay haweeney lagu dilay magaalada Minneapolis waxaan doonayaa inaad halba miyii joogtay inaan sax ku siiyo moolka igu bedelinaa in xoolo weyn ma jooga hashaada iska hayso waxaan ku geenayaa shirkadda Sanaabil maxay qabar waxay ku siinaysaa moobeel kowdhi maalintii waxa iska bixinaysaa $1 iyo wixii ka yar Allah loogu dambeeyay magaal baan dadweynaha aanu la dareenahay saaxiib aabaha kula hadlaya wiilkaygiiyow ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Soomaali Suudaanays kow bes Allahu akbar war meeqa tabeelan laamiyada ku arkay aaba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allayle haba u labayn Soomaali Suudaanays waliba waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay 7 sano isku xigta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya laga soo bilaabo 2019 ilaa hadda Soomaali Suudaanays Hospital saaxiibka bulshada SSH Premier Wallet baahitiraha bulshada bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega mar kale ismaqal wanaagsan saaxiibayaal waa subaxnimo khamiis ah taariikhdu waxa ku aasaysan tahay 8 bisha Janaayo sanadka 2026 warkan oo dhameystiran waxa la diyaara wariyayna Sumaye Daahir Salaad mahadsanid Cabdicasiis subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada aad maqasheen oo dhameystiran Mareykanka ayaa sheegay inuusan dulqaad u haynin in la musuqmaasuqo taageerada gargaar ee loogu talagalay Soomaaliya xilli dowladda Soomaaliya lagu eedeeyay inay lunsatay gargaar loogu talagalay dadka danyarta ah ee ku nool Soomaaliya Maslax Abuukar Xaaji dowladda Mareykanka ayaa luuqadii ugu adkeyd ku cambaaraysay kagana soo horjeesatay fal ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay ku eedeysay inay ku lug leeyihiin mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya falkan ayaa ah in la jabsaday baqaar weyn oo ay leedahay hay'adda cunnada adduunka ee WFP isla markaana 76 metric tons raashin la-eg oo noocyo kala duwan isugu jira oo dadka dhibaataysan loogu talagalay in lagu garab istaago lagu boobay gabi ahaanba dowladda Mareykanka ayaa si aan lexleexad lahayn u sheegtay in falkan ay ku lug leeyihiin mas'uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya aysan aqbali doonin in gargaar bini'aadanimo oo lacagaha lagu soo iibiyay ay dowladda Mareykanka intooda badan bixisay si fudud lagu jabsado baqaarkii uu ku jiray gargaarkaasi lana boobo iyada oo dowladda Soomaaliya ugu yeertay isla xisaabtan dhab ah oo ay ku muujinayso in dowladda Mareykanka lagu qancin karo inay sii wado gargaarkii bini'aadanimo ee Soomaaliya ay ku taageeraysay Mareykanka ayaa si toos ah ugu dhawaaqay inuu joojiyay gargaarkii bini'aadanimo ee Soomaaliya maadaama dad gaar ah gargaarkaasi uu u gacan galayo dadkii loogu talagalayna ay sheegtay inaan la gaarsiineen waaxda arrimaha dibadda ee arrimaha bini'aadanimada ee dowladda Mareykanka ayaa qoraal ay baahisay waxa ay ku tiri waxaan si qoto dheer uga xunnahay wararka naga soo gaaray saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo burburiyay baqaar weyn oo ay ka mas'uul tahay hay'adda WFP sidoo kalena qaatay oo xaday raashin la-eg 76 metric tons isla markaana loogu talagalay dadka xaaladda adag ee nololeed wajahaya ee Soomaaliyeed in lagu garab istaago maamulka Trump waxa ka dhamaaday dulqaadkii wuxuuna u soo jeesanayaa isla xisaabtan dhab ah iyada oo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya dowladda Mareykanka uu ugu baaqay inay wax ka qabato kuwa caadaystay lunsashada tuuganimada
iyo in ay awood u adeegsadaan gargaarka bini'aadanimo. dowladda Mareykanka ayaa qoraal ay baahisay ku shaacisay inay joojisay gargaarkii bini'aadanimo ee ay ku taageeri jirtay Soomaaliya oo ay si toos ah uga faa'iideysan jireen dadka xaaladaha adag ee abaareed iyo kuwa nololeedba wajahaya. dib u soo celinta gargaarkan ayaa dowladda Mareykanka waxay shuruud uga dhigtay in dowladda Soomaaliya ay qaado tallaabooyin cadcad oo muujinaya waxa ay diiday dowladda Mareykanka caalamkana uu arkayo in wax looga bedelayo dadna loo ciqaabo waxa ka dhacay baqaarkaasi hay'adda WFP ay leedahay. tani waa ceeb weyn oo Soomaaliya mar kale ay wajahayso marka loo eego sida dowladda Mareykanka ay uga hadashay arrintan aadkana ay u hadalhayaan warbaahinta caalamiga ah tan maxalliga ah iyo baraha bulshada ee dadweynuhu ay ku wada xiriiraan. dhowr jeer oo hore dowladda Mareykanka waxa ay joojisay caawinaado kala duwan oo Soomaaliya ay siinayso sabab la xiriirta in la musuqmaasuqay oo gacantii loogu talagalay aan la gaarsiin. laakiin tani waa mid ka mid ah dhaawacyada waaweyn ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya soo gaaray maadaama lagu eedeynayo mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya in ay gacan marsadeen oo ay lunsadeen gargaar bini'aadanimo. baqaarkii gargaarkaas uu ku jirayna la jebiyey sababtuna aysan garanayn mas'uuliyiintii ka mas'uulka ahaa gargaarkaasi. hogaamiyihii kooxaha ka dagaalama koonfurta dalka Yemen ayaa la tilmaamay inuu u baxsaday deegaanada maamulka Somaliland xilli isbahaysiga Sacuudiga uu war ka soo saaray sida uu Yemen kaga baxsaday hogaamiyihii maleeshiyada ka dagaalanta dalkaasi. sida warkan uu ku eegayo war-soo-saaraheena Saakay Cabdicasiis Saciid Bered. sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ayaa waxay sheegeen in hogaamiyihii kooxaha goonugoosadka dalka Yemen Idrus al-Zubaydi uu ka baxsaday dalka Yemen una baxsaday deegaanada maamulka Somaliland halkaasi oo la sheegay inuu ka galay dhanka badda isagoo adeegsanaya doon. waxaana la sheegay intaa kadib in diyaaradii ay qaaday taasi oo geysay magaalada Muqdisho. wakaaladda wararka ee Reuters waxay sheegtay sidoo kale in diyaaradii ka qaaday deegaanada Somaliland ee Muqdisho geysay ay haddana geysay Imaaraadka Carabta. arrintaasna la sheegay inay ka shaqeeyeen xukuumadda Abu Dhabi. ma jirto xogo dheeraad ah oo laga bixiyay qaabka uu u baxsaday iyo inta ay ku qaadatay inuu isku maro deegaanada maamulka Somaliland magaalada Muqdisho iyo inuu tago Imaaraadka Carabta, iyadoo warka la xiriira inuu baxsaday Idrus uu soo baxay shalay war-saxaafeed ka soo baxay isbahaysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ayaa lagu sheegay in hogaamiyihii koonfurta Yemen ee kooxaha goonugoosadka Idrus la filay inuu ka qayb galo wadahadalada looga hadlayo midnimada Yemen ee lagu waday inay ka furmaan magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga. intaa kadibna la ogaaday inuu gebi ahaanba ka baxsaday dalkaasi Yemen uuna gaaray deegaanada maamulka Somaliland halkaasi oo la sheegay inuu kasii tagay magaalada Muqdisho kadibna uu gaaray Imaaraadka Carabta. ma jirto faahfaahin ku aadan cidda fududeysay arrintan iyo sida ay sidan fudud ugu dhacday in Idrus uu si fudud kaga baxsaday Yemen uuna gaaro Imaaraadka Carabta isagoo oo soo maray deegaanada maamulka Somaliland iyo sidoo kale magaalada Muqdisho. war-saxaafeed ka soo baxay isbahaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ee ka howlgalay Yemen ayaana sidaa lagu shaaciyay. Sacuudiga ayaa toddobaadii la soo dhaafay waxa howlgallo military ka waday dalka Yemen. howlgallada uu ku soo afjaray maleeshiyada fallaagada ee goonugoosadka kuwaas oo ay taageeraan Imaaraadka Carabta, iyadoo Imaaraadka looga itaal roonaaday loolanka dalka Yemen oo markan ay ku gacan sarreyso xukuumadda Sacuudi Arabia. dalka Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu ka mid yahay dalalka khaliijka ee sida weyn loogu eedeynayo inay qayb ka yihiin burburinta dalalka islaamka ee ku yaala bariga dhexe iyo Afrikaba, iyadoo la ogaa dhibaatooyinkii Imaaraadku ay ka geysteen dalalka Liibiya, Suudaan, Yemen iyo Soomaaliya oo qayb ka ah dalalka ay fargelinta siyaasadeed ku hayaan Imaaraadka Carabta. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani ayaa mas'uuliyiinta maamulkaas waxa uu kala hadlay xadgudubkii Yuhuudda ay ku sameysay midnimada dalka. Saciid Xasan Faarax ayaa inuu soo diray. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo uu weheliyo madaxweyne ku-xigeenka Elias Cismaan Lugatoor ayaa waxa ay kulan isxog waraysi iyo tashi ah ay la yeesheen golaha wakiilada Puntland iyo qaar ka mid ah xildhibaanada ku metela labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. kulankan ayaa looga hadlay xaaladda guud ee Soomaaliya, doorka Puntland ee dowlad dhiska iyo isbedelka ka socda gobolka.
kulankan ayaa waxaa ka qayb galay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole ahna senator ka tirsan aqalka sare ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin kale kulankan ayaa qayb ka kulamo wada tashi oo madaxweyne Siciid Deni iyo ku-xigeenkiisu ay la yeelanayaan golayaasha xukuumadda siyaasiyiinta haldoorka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada si aragti iyo tallaabooyin kulamadaasi ka soo baxa loogu saleeyo go'aamada masiiriga ah ee dowladda Puntland ee ku saabsan marxaladda uu dalku marayo gaar ahaan arrinta ka soo cusboonaatay dhinaca Somaliland oo markaasi loo aqoonsaday inay tahay dowlad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale oo ay Israa'iil u aqoonsatay isla markaasna ay weli ka aamusan tahay xukuumadda Puntland iyo weliba xaaladda Soomaaliya oo ay ugu horeeyaan arrimaha doorashada oo haatan khilaaf xoogan uu ka taagan yahay dowladda federaalka iyo Puntland ay isku khilaafsan yihiin kulamadan uu madaxweyne Siciid Deni iyo ku-xigeenkiisu ay la qaadanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa imaanayaan xilli muddooyinkii u dambeeyay uu madaxweynaha uu kala kulmeeyay bulshada culeysyo kala duwan oo ku saabsan mowqifka Puntland ee arrinta Somaliland ee loogu aqoonsaday inay tahay dowlad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale taasi oo muddooyinkii u dambeeyay xukuumadda Puntland ay ka aamusnayd hase yeeshee bulshadu ay si weyn u hadalhaysay isla markaasna la waayay warka iyo mowqifka ay ka taagan tahay Puntland arrintaasi balse madaxweyne Siciid Deni ayaa bilaabay dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo uu ku doonayo sidii uu arrintaasi uga jawaabi lahaa isagoo hore ula kulmay bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan siyaasiyiinta iyo weliba sidoo kale aqoon-yahanada deegaanada Puntland haatana waxa uu la kulmay golaha wakiilada iyo weliba sidoo kale xildhibaanada labada aqal ku matala Puntland ee ku sugan magaalada Garowe oo ugu horeeyo madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Maxamed Faroole Siciid Xasan Faarax KNN wararka Puntland waa maxay qorshaha Israa'iil ay ka leedahay aqoonsigii ay siisay gobolada waqooyi ee Soomaaliya ee loo yaqaan Somaliland warbixin arintaasi ku saabsan waxa inoo soo koobay wariyahana Maxamed Maxamuud Cabdi Somaliland waxay u muuqataa in arinteedu ay u horseedi doonto dalka qatar amni iyo waliba qalalaaso siyaasadeed haddii aan meelo badan firo gaar ah laga siinin tan iyo xilligii bilowgii dooda aqoonsiga ee Israa'iil iyo Somaliland waxay aad dunida isha looga hayay siday ugu suurtagali doonto Israa'iil iyo isku daygeeda waxaana muuqata in ay tallaabo ay qaaday iyadoo og in dawlad Soomaaliyeed ay jirto haddaba KNN ayaa documentary kooban ka diyaarisay qorshaha Israa'iil iyo damaceeda aqoonsiga qayb ka mid ah dalka Soomaaliya gobolada waqooyi ee Soomaaliya ee loo yaqaan Somaliland waa dhul baaxad leh kuna yaala dhul xeebeed dekado waaweyn iyo waliba deegaano ku haboon deegaamaysi haddaba Israa'iil maxay ku dooratay in goboladaasi aqoonsi gooni ah ay siiso ama ay ka dhigto dalka madax bannaan Soomaaliya dowladda Israa'iil hadda sababta ay Somaliland ay aqoonsiga sharci darrada hadda ay u siinayso ama ay u aqoonsanayso ayaa waxa ah in Soomaaliya aysan gaarin danaheeda maxay tahay dadka muslimiinta ahi in sidaasi oo dhan ay ugu hamuun qabaan iyagoo oo og Israa'iil wixii ay ku kacday oo ahaa shacabkii reer Falastiin oo ay ku dhigtay yuhuud inay damaatay markay Falastiin soo baabi'isay inay dadkayna isku dirto iska hor keento dulumka ay wada halkaas la timaado ma dunida doorsoomi rabto mise cariga islaamka ayay yuhuud u aragtaa inay ka tirtiri karto muslimiinta mase la socotaa in shacabka iyo waliba culimadii diinta u saaxiibka ahayd gebi ahaanba la afduubay aanay marnaba ka hadli karin arrintaasi kii isku soo dayana xabsiga loo taxaabaya fahan warbixintan kooban iyo weydiimaheena oo aan ugu gol leenahay inaan ku bidhaamino doonista Israa'iil waxa laga dhaxli karo soo dhawaanshaheeda qaybo ka mid ah dalka Soomaaliya damaca Israa'iil way adag tahay in laga dhigo kasii daran haddii ay marba haysato cid u durbaantanto ayaan darro waxa ah khaldoorkii iyo siyaasiyiintii gobolada waqooyi ayaa maanta si ay ugu heeliyaan doonista Israa'iil aqoonsiga huwan halaag iyo waliba ku tagrifalka diinteena suuban sababta aan u leeyahay ayaa ah yahuudu halka ay deegaansato kama jirayso deganaansho nabdoon iyo waliba badbaado diimeed iyo damqasho bini'aadanimo tusaale waxa inagu filan halkii hore loo dejiyay si ay ugu noolaadaan kadib markay isku arkeen inay gebi ahaanba ay la wareegi karaan ayayna duulaan in ka badan 70,000 oo shacab reer Falastiin ay ku halaageen maxay tahay maanta haddii ay helaan dhulkan buuraha iyo bariga badan baaxad leh markay ay isku helaan filashada xigta waa kibir iyo waliba gumaad dadweyne yahuudu waana sababaha ugu badan ay u doorbidaan inay degto dalka Soomaaliya qaybihiisa kale
marastan aan marnaba dunida laga jecelaysan ayay maanta nasiib darro ku tahay in siyaasiyiin diinta ku abtirsada dhaqanka soomaalida lehna diinta muslimka uu maanta u durbaantumayo filashada hogaanka Somaliland iyo inta uu ku aragtida ahi ayay qubaradu ku tilmaamayaan in ay noqon doonto rajadooda oo ayna ku dambeyn doonto afkiiba juuqda gabay yaa iiga cali ah walaal yani maaragtay in arintaasi laga hortago dowladda Soomaaliya ay fahamto waxay soo dadejisay in si sahal loo kala gooyn karo waxayna la xiriiraan dadkaasi yani dowladda cadow ku ah Soomaaliya ay imaaradna kow ka tahay Israa'iilna ay laba ka tahay iyo dowladda kale ee gadaal ka taagan ee Soomaaliya inay ageeda ku istaagto aan rabin ayaa maaragtay ay la haystaanba qulqulatada Israa'iil waa tii quraanka lagu sheegay samankeeda iyo dadka muslimiinta halka ay ka kala joogi doonaan isku dayga yahuuda iyo waliba fargelinteeda diimeed waa tan maanta taagan maxaa ka nasiib xun adiga oo cibaadeysta haddana yahuud garabka ku wata barbilow kasta bardhamaad ayay leedahay doorkeeda Israa'iil waxaa ka awood badnaan doona dadka muslimiinta haddii ay u midoobaan ka hortagida damaca guracan saan waajibkayna diiniga aan u gudanno oon u sheegno waxa xaq u yahay maanta kale qof kasta ee Soomaaliya qof kasta ee iimaan ku jiro qof kasta ee danqanaya waajib waxa ku ah kii cod ku difaaci kara kii cudud ku difaaci kara kii niyad ku difaaci kara inuu is soo taago ayaa waajib nagu ah kulligeyna haddaba maxay tahay waxa la gudboon dadka Soomaaliyeed aad baad u mahadsan tahay maxamed maxamuud cabdi markana haddaan eegno dowladda Jabuuti ayaa mar kale si cad u sheegtay in aan la aqbali karin kala qaybinta midnimada Soomaaliya isla markaana sina aan loo kala qaybin karin dhulka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidoo kale Jabuuti ayaa taageertay go'aankii golaha amniga midowga Afrika oo ku baaqayay in Soomaalidu wada hadasho Israa'iilna ay ka noqoto aqoonsiga Somaliland kaas oo si adag kaga hortimid dowladda Federaalka Soomaaliya dhawaan golaha amniga nabadda midowga Afrika ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku taageeray midnimada Soomaaliya dhamaadkii bishii hore Israa'iil waxa ay noqotay maamulkii ugu horeeyay caalamka ilaa haddana ah kan kaliya ee aqoonsada maamulka Somaliland wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil ayaa talaadadii safar ku tagay Somaliland si uu u muujiyo aqoonsiga Israa'iil safarkiisuna waxa uu dhaliyay caro weyn oo ka timid Soomaaliya iyo dalalka gobolka maamulka Puntland waxa uu sheegay inay tallaabo adag ay ka qaadayaan dadka anshaxumada ku faafiya baraha bulshada ee ku sugan deegaanada maamulkaas markale Saciid Xasan Faarax xukuumadda Puntland ayaa war ka soo saartay dhalinyarada Soomaalida ee ku nool deegaanada Puntland isla markaasina baraha bulshada ku soo gudbiya muuqaalada anshaxumada ee aan waafaqsanayn diinta Islaamka iyo waliba sidoo kale dhaqanka Soomaalida maxamed cabdiwahaab wasiirka wasaaradda cadaaladda ee Puntland oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay sharciga la tiigsan doonaan dhaqan xumada dadka soo bandhigaya gaar ahaan dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha isugu jira isaga oo shirkadaha isgaarsiinta ka codsaday in laga xidho weliba akoomada ay markaasi isticmaalayaan haddii lagu qabto sidoo kale laamaha ammaanka ee booliiska ayuu faray in ay gacanta ku soo dhigaan cid kasta oo markaasi soo gudbisa muuqaal anshaxuma kaasi oo aan waafaqsanayn diinta Islaamka iyo waliba sidoo kale dhaqanka Soomaalida dhinaca kale waxa uu bulshada ugu baaqay in ay arintaasi meel uga soo wada jeestaan xukuumadda iyo shacabkuna iska kaashadaan si loo ilaalin lahaa qiyamka iyo dhaqanka ummadda Soomaaliyeed isla markaasna looga hortagi lahaa muuqaalada iyo anshaxumada noocaas oo kale ah ee lagu baahinayo baraha bulshada gabadha dhahaysa jirkaygan bannaanka keenaya cidna ka xishoomahayo oo la yaqaano ina hebeloo guriga magaalada ka digantaa la garanayo wiilka dhahaya xumaan baan ka shaqaynaynaa walaaqanaynaayo ina keena waa la soo qabanayaa waa xiraynaa waa dacwaynaynaa booliiska iyo xeer aalinta iyo hay-adaha cadaaladda iyo amnigu way ka shaqaynayaan in la soo riboodgoreeyaa la rabaa in la sheegaa la rabaa ma ka qarsanayno mana ka aamusayno kuwa bannaanka inaga jira oo aan la soo qaban karin hadda kuwaas sidii kaloo loola macaamili karaa la raadinaya inaan laga aamusin baa la rabaa marka waxaa la arko waa in la soo sheego oo lala soo wadaago hay-adaha amniga
iyo cadaaladda u leeyahay kala soo xiro qofka waa qodob kale shirkadaha isgaarsiinta oo waddanka jooga oo ayagu wixii loogu talagalay in dhanka wanaagsan looga faa'iido ganacsiga keeneen dadka qaybtooda si xun uga faa'iideysanayaan oo ummadda ku kharibayaan mas'uuliyad baa ka saaran ummadda waa inay joojiyaan oo ay ka xiraan dadka waxaa caadaystay akoomada isticmaalaan waa la yaqaana waa la heli karaa waa inay xiraan waa inay sameeyaan xafiisyo ka shaqeeya dabagalka ilaalinta anshaxa laakiin walaalayaal ummaddeena inaan badbaadino idinkuna irsiq xalaal aad heshaan baanu ka shaqaynanaaye wax idiin diida lama arko inaad samaysataan xafiisyo oo shirkad kasta ay leedahay oo u xil saaran dabagalka iyo ka shaqaynta dadka falfalxumada social media kasii deynayay iyo baraha bulshada ku wada xariidho. Siciid Xasan Faarax KNN wararka Puntland. halka warka subaxa aad kala socotaan dhageystayaal waa warbaahinta kulmiye xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho. wararka dibadda haddaan eegno waaxda amniga gudaha ee Mareykanka ayaa sheegtay in saraakiishu ay wadeen howlgallo baaritaano ah oo ka socday aaga uu falku ka dhacay islamarkaana dad rabshad wadayaal ah ay xanibeen saraakiisha. bayaanku waxa uu intaasi ku daray in mid ka mid ah dadkaasi lagu tilmaamay rabshad wadayaasha ay hub ka dhigtay gaari ay wadatay iyadoo isku dayday inay jiirsiiso saraakiisha fulinta sharciga si ay u disho. waaxdu waxa ay ku tilmaantay falkaasi la sheegay in haweeneydu isku dayday inuu ahaa fal argagixiso ah. sidoo kale waxa ay sheegtay in sarkaalka isaga oo u baqaya naftiisa, nolosha saaxiibadiisa ee fulinta sharciga iyo badbaadada shacabka uu rasaas ku furay haweeneyda. waaxdu waxa ay sheegtay in xaaladu ay faraha ka baxday sabab la xiriira weeraro joogto ah iyo cambaareen lagu hayo saraakiisha socdaalka ee dalka oo dhan. sidoo kale waxa ay waaxdu kormeertaa waaxyo kala duwan oo ay ku jiraan hay-adaha fulinta socdaalka sida hay-adda socdaalka iyo kastamyada iyo ilaalada xuduudaha iyo kastamyada Mareykanka. golaha deegaanka magaalada Minneapolis ayaa soo saaray bayaan ay ku shaacinayaan haweeneydii geeriyootay magaceeda, taas oo ay ku sheegeen in lagu magacaabi jiray Rene Nicole islamarkaana ay ku cambaareeyeen falalka ay ka sameysay magaalada Minneapolis. guud ahaana dhageystayaal warkii subax aad kala socoteen KNN waa naga inta.